waxaa maanta soo gaadhay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo Mr. Eric Selham oo ah madaxa ururweynaha xagga horumarka iyo dhaqaalaha u qaabilsan qaaradda Yurub. wafdigan ayaa markii uu soo gaadhay xarunta qasriga madaxtooyada waxay kulan ballaaran kula qaateen madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaanyo iyo ku-xigeenkiisa. kulankan ayaa waxa sidoo kale madaxweynaha ku wehelinayay wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah iyo sidoo kale wasiirka qorsheynta qaranka ee Soomaaliland. kulankan ayaa ahaa mid albaabadu u xidhnaayeen. haddaba markii uu soo dhamaaday kulanku ayaa waxaa shirka faahfaahin ka siiyay wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar iyo madaxa horumarinta dhaqaalaha ee qaaradda Yurub Mr. Eric Selham. waxaa maanta kulan la yeeshay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxa ururweynaha xagga horumarka iyo dhaqaalaha ee qaaradda Yurub u qaabilsan Mr. Solheim oo ay tahay markii ugu horeysay uu dalkan booqasho ku yimaado. Mr. Solheim wuxuu ahaan jiray wasiirka horumarka ee dawladda Norway, marna wuxuu ahaa wasiirka xagga deegaanka ee dalka Norway, iminkana waa madaxa qaaradda Yurub xagga horumarka marka laga hadlayo. sharaf bay noo tahay haddaan nahay mas-uuliyiinta Jamhuuriyadda Soomaaliland in mas-uul noocaas uu noo yimaado dalka. waxaanu ka hadlaynay development issueska dalka horyaalla xagga horumarka, gaar ahaan waxaanu ka hadalnay mashruucan cusub ee loo yaqaano New Deal iyo doorka ay Soomaaliland ay ka qaadanayso iyo sida ay Soomaaliland iyo New Dealka ay wada shaqeynayaan maadaama uu yahay madaxa New Dealka ee arrimaha si wanaagsan baan arrimaha uga wada hadalnay. wixii kale farsamana waxay ka wada hadli doonaan mas'uuliyiinta kale ee qaranka u qaabilsan xagga horumarka. Not being able to speak in Somali, beautiful Somali language, hope that you can understand my English. We have come here to be informed about the progress which has been achieved in Somaliland over the last years. We know there have been substantial economic and social progress that is very important for the people of Somaliland. Mr. Solheim waxa uu sheegay inay Somaliland u yimaadeen inay kala hadlaan arrinta New Dealka, isagoo sheegay inay Somaliland tahay cidda xaq u leh inay horumarkeeda ka shaqeyso, sidoo kalena ay Somaliland xaq u leedahay inay soo gudbiyaan baahiyahooda ayna Somaliland kala shaqeyn doonaan arrintaasi.